السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الآنتين بعد ما أنتين سيدو مخلكين أي مخالكين إذين سوجار أي وبحضر رجيس بارتس بلعد أنا يقولون وصاحبكين شيلان على معه كمارة. رمضان كريم رمضان مبارك وحن آد وجوهم بلياننا ومضى مسلمين تمل والباقي مركز هي كسجين بشة بركة سن ما أنت يكون تهاي حرجيننا إن قف والبا وكفى إذا سندونا إن شاء الله خير كذا مركزي وإلهي نوافجيه يعني إلهي كرجيننا إن شاء الله شلي وحال سمي خريطور كترتن كرمضان كاب بلعد أو كاس أو سنددي ودن بي لقى خبنا يدك مذا بلعد كوحدة بلعد إستار أو شلي دماشات يدل عيس كدي كلنكي أي لعيارتي يردولي شلي وحواي رمضان كي سود بينيسي دل عيس ساينا مركزي وبحين aan ku bilaabay waxaa shalay hoolka Taytayley si toos ah markaasi uu uga dhacay qorituurka tartanka Ramadan Cup kaas oo sanadadii ugu dambeeyay laga qabanayay degmada Balcad waxaana tartanka Ramadan Cup qorituurkiisa ka soo qayb galay qaar kamida maamulka ciyaaraha ee degmada Balcad iyo sidoo kale lajanadii hore iyo sidoo kale macallimiintii qaar kamida ciyaartooydii loo qorituurayay tartanka ayaa maanta si toos ah looga ambaqaadi doonaa salaxa walaalaha kaas oo sanadadii ugu dambeeyay lagu ciyaarayay tartanka Ramadan Cup Cabdirasaaq Torres ayaa looga mahadcelinayaa in sanadka kan tartanka Ramadan Cup uu taabigiliyay tartanka ayaa waxa markaasi ka soo qayb gashay 12 kooxood ayagoon markaasi 12 kooxood 3 garuub loo kala saaray garuub walba wuxuu noqonayaa min 4 team maadaama ay 12 kooxood yihiin waxa soo baxaya sida ay sheegeen agaasimiyaasha tartanka in 6 kooxood looga baahan yahay in ay ka soo baxdo garuubaha ayadoona markaasi loo baahan doono 2 koox labada kooxne waxa markaasi ay ku soo bixi doonaan labadii koox ee markaasi ugu dhibcaha badan ayaa soo bixi doonto sida markaasi shaaciyay agaasimaha tartankan Cumar Maxamed waxa sanadkan ka soo qayb galay 12 kooxood sanadkii hore wuxuu ahaa Horyal laakiin sanadkani waa group 3 qaybood waaye group A group B iyo group C waa afar A laba ka soo bixayso laba ka hereyso B laba ka soo bixayso laba ka hereyso C na laba ka hereyso laba ka soo bixayso meeshaasi nagta waxa imaanayaan 6 kooxood waxa herayo 6 koox waxa marka play off 2 kooxood 6 naadi hirtay waxa ka soo baxayaan 2 kooxood ugu dhibcaha sareyso play off ku soo baxayaan oo waxay soo galayaan 6 kooxood oo nagta waxay nagta ciyaarayaan 8 koox kooxda Balcad Star oo shalay dabaaldeg iyo damaashaad dalxiis magaalada Muqdisho u aaday kadib kulankii ay la ciyaartay Iridoli 3 jeer oo xiriir ah ay soo tiigsadeen kama dambaysta tartanka ama tartamada laga qabto ee heerka koowaad ee degmada Balcad taas oo ku cadeynayso awoodeeda waxaana ay shalay sameeyeen wax kale oo wali ah shalay Balcad Star ayaa u dalxiis tagtay magaalada Muqdisho ayagoona markaasi jabi ku qaadanayay xeebaha Nimu hadaba kooxdan oo runtii sanadadii ugu dambeysay wacdarooyin aad u weyn sameeynayay ayaa sanadkii labadii sano la soo dhaafay ku guuleysatay tartanka heerka koowaad ee degmada Balcad walow sanadkan laga guuleystay haddana waxay u muuqataa inaysan waxba u arkin maadaama shalay dhiirigelin ay u sameeyeen ciyaartooyda kooxda iyo sidoo kale qaar kamida taageerayaasha macalinka iyo dhammaan ciyaartooyda iyo qaar kamida taageerayaasha ayaa shalay jabi waxay ku qaadanayeen Jasiiro iyo Nimu waxayna muujiyeen inaysan waxba aysan u arkeenin hal koob oo markaas laga qaaday maadaama ay yihiin kuwa ugu koobka badan markii loo eego degmada Balcad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ugu soo foolay bisha barakeysan ee Ramadaan anagoo ah kooxda kubadda cagta ee Balcad Star waxaan leenahay Ramadaan mubaarak رمضان كريم رمضان كريم رمضان مبارك رمضان كريم رمضان مبارك
رمضان مبارك. رمضان كريم. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان كريم. رمضان مبارك. رمضان كريم. رمضان مبارك. رمضان كريم. رمضان مبارك. sidoo kale Dr. Ayub Stadium waxaa ka soconaya tartanka akadeemooyinka ee degmada Balcad oo runtii asigana meel xiiso iyo xamaasad badan maraya kooxo badan ayaa ku loolamaya tartanka kan oo gaaraya ilaa 30 kooxood sportiska degmada Balcad ayaad moodaa inay markaasi sameynayso kobcin iyo sidoo kale wax qurux badan maadaama laga hore looga ciyaari jiray tartanka heerka koowaad ama Serie A iyo Serie B iyo Serie C tartan xaafadeedka iyo sidoo kale iskuulada iyo sidoo kale tartanka lejanada waxaana hadda lagu soo biiriyay tartanka akadeemooyinka oo markaasi haatan Dr. Ayub Stadium ka socda anigu waa saaxiibkii Injelani Ali Mucu Kamara oo idin dhahaya Soomaaliya Sports hormar leh